السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteena aan jecelnahay. Maxamed wuxuu ahaa caas waalideyn ayuu ahaa. Hooyadiis waxay ahayd islaan da'ba ahayd. Maxamed wuxuu dhageysan jiray muusiga ayuu dhageysan jiray. Maxamed wuxuu asxaab la ahaa asxaab ka hanti badan. Maxamed wuxuu bilaabay inuu muusiga u siyaadsado uu ku daro mukhadaraadka iyo khamrada. Maalimaha ka mid ah Maxamed iyo asxaabtiisa way isku imaadeen. Waxayna go'aansadeen inay aadaan safar inay aadaan. Maxamed hooyadiis ayuu ku soo laabtay wuxuuna ku dhahay hooyo aniga safar ayaan aadayaa asxaabteyda ayaan la soo baashaalaya. Hooyadii iyadoo ka diidan ayuu amarkeedii jibiyay. maalintii labaad Maxamed safarkii ayuu bilaabay. waxaa la raacay diyaaradii ayaa la raacay. saacada ka bacdi diyaaradii way soo degtay waxay ku soo degtay garoonkii ay ku soo degi rabtay. Maxamed iyo asxaabtiisii wadankii way imaadeen. waxay bilaabeen inay khamra iyo muusig fara badan inay dhageystaan. Maxamed asagoo isku buuqsan ayay maalimaha ka mid ah ayay asxaabtiisa ku dhaheen inakeena waxaan aadaynaa baarka ugu qalsan. saacada ka bacdi waxay tageen baarkii ugu qalsanaa magaalada. iyagoo khamri iyo muusig ciyaarayaan ayaa nin taagnida ka dhacay. markii la isku imaaday maxaa dhacay la dhahay waxaa loo imaaday ninkii inay nafta ka baxday. Maxamed runtii wuu murugooday. Maxamed wuxuu ku fikiray inuu hooyadiis u laabto inuu hooyadiis duco ka baryo. wuxuu naftiisa ugu sheekeeyay balse adiga hadday ku qabsan lahayd maxaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala kala kulmi lahayd. Maxamed isla markii safar ayuu soo galay hooyadiis ayuu imaaday hooyadiis ayuu ka baryay duco ayuu ka baryay.